asalaamu calaykum nabaday daawadayaal meel kastaad joogtaanba waxaad ku soo dhowaataan casharadii alaaba aad kala socon jirteen barta aanu youtube-ka ku leenahay ee kanaalka SaaS Software. daawadayaal waxaanu maanta idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala fideogan idinku soo gudbin doonaa sidii aad kombiyuutarkaaga ugu shuban lahayd Office 2019 insha allahu tacaala wax fara badanna uu kaga gedisan yahay ofisyada kale insha allahu tacaala idinkuna aad arki doontaan. haddii aad beedmo waxaanu samayn doonaa insha allahu tacaala sidii loogu shubanayay ayaanu iska gudageli doonaa insha allahu tacaala. daawasho wanaagsan. marka koobaad ama firastiga waxaan tegi doonaa insha allahu tacaala halkii ugu jiray ofisku. iminka aniga flashtaas ayugu jiraa. waxaan tegayaa ofiskii ayaan tegayaa insha allahu tacaala. in yaro culays ayaa yar galay. waxaan ku dhufan doonaa os install insha allahu tacaala ayaan ku dhufan doonaa. isla markaana waxaa soo kici doona futuristkii u lahaa ofiskaasi. difference fara badan ayaa u dhexeeya maxay tahay ofisyada kale marka loo eego. haddaba halkan waxaa lagu mideeyey 3 office oo ah 16 13 iyo 19 ayaa lagu mideeyey. kaad xiisaynaysaba waad ku shuban kartaa adigu insha allahu tacaala. marka anigu 19 ka raba inaan ku shubto waa inaan 19 ka doortaa. sidoo kale halkan os-ka computer ku jira waa 64 bit ayuu isaguna. sidoo kale ashiyaadan fara badan intii aanan u baahnayn aan arko inaanay waxba iga khusaynaynin ayaan iska reebayaa. sidoo kale halkan wixii aan ka tegay sida Visual Pro-ga oo kale waa telecommunication-ka iyo waxyaabaha ayaa loo isticmaalaa oo iyo xidhiidhinta ama practicalka telecommunication-ka. markaan intaa ka reebo waxaan leeyahay install ayaan leeyahay. cabaar yar ayuu soo kacayaa insha allahu tacaala. aan sugayna haddii alla ka dhigo. timeka yarna waa u samri doonaa. markaana wuxuu bilaamayaa installationkii tooska ahaa. sidaad aragto intaasoo ashiyaa wordkii, excelkii, powerpointigii, accesskii, maxayatay kadaa wa kadaa waxyaabahaasoo dhan ayaa inoogu install garaysmaya. uu macal ka mid yahay skbgii, ka mid yahay fiishyadii, projectigii, onenotekii, maxayatay outlogii, powerpointi, excel, word, publisher iyo access. marka insha allahu tacaala intaa yar ayuu timeka ku qaadanayaa. haddii aad meedno insha allahu tacaala waxa uu kaga duwan yahay ofisyada kale ee maxayatay kan aynu maanta ku shubanayna ama 19kani waxa weeye xagga tusaale ahaan fiishyadan ma wada laha ofisyadu. sidoo kale powerpointiga slidyo fara badan oo maxay tahay lectureka markaad soo jeedinayso oo kale ama aad powerpointiga slidyada wax ku diyaarsato runtii aad u qurux badan ayaa uu leeyahay oo maxay tahay aanay kuwa kale lahayn. sidoo kale xagga wordka marka laga eego eegana waxa uu leeyahay waraaqo template oo maxay tahay iyagu sidoodu sidii diyaarsan oo aad wax ka bedelayso insha allahu tacaala. marka waxaan filayaa insha allahu tacaala inaad ku qancdaan kana gudubtaan ofiskii dadka inta ugu faraha badan leh wax isticmaalaan 2007 ay isticmaalaan. ofiskii ahaa 2007 ay isticmaalaan oo runtii aad u qadiimi ah insha allahu tacaala. markastana waxaan jecelahay haddaynu nahay bulshada aad ka xiisaysa ICT-ga inaynu iska dhisno xagga maxay tahay versionka applicationada ama softwareska oo runtii wax fara badan marba wax lagu soo kordhiyo waxna laga bedelo auditing lagu sameeyo sanadkii walba. inaynu la soconaa runtii aad bay muhiim u yihiin. sidaad aragtaan iminka wax yar ayaa inooga hadhay insha allahu tacaala. intaa yar ayaa aanu sugi doonaa insha allah inta inoogu shumayso. adigana waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaad kombiyuutarkaaga wax ka bedesho. iminka waxba kama hadhin. kole waxaan filayaa xaggan ofiska waa ku shumeen.
sidaad aragto wordkii iyo waad aragtaa accesskii taas waxaa weeye way inoogu wada shubantay weeye macnaha. laakiin waxaa jirta waad karaagaraynaysaa nidaam ka duwan kuwii hore ayaa loo karaagaraynaya isagana waad tusi doonaa insha allah. iminka waa inoogu shubno ama installkii waa ku dhamaaday laakiin sidii loo karaagaraynayay insha allah taala ayaynu suganaa. wuu inoo soo yara kacaya iminka marka uu hadeer installkii dhamaaday kadib markuu dib usoo kaco sidii loo karaagaraynayay ayaan idin tusaya insha allahu tacaala. markuu dib kuugu soo kaco waxaad tegaysaa utilitieskaas tegaysaa. kadib markaad tagto waxaad ku dhufanaysaa active office ayaad ku dhufanaysaa insha allahu tacaala. dabeedna cabaar ayaa yar sugaysaa. halkan ayuu koor yar ka wada doonaa kaagana sheegi doonaa bartaas ayuuna kaaga sheegi doonaa in la karaagareeyay insha allah. hadduu hore kuugu soo kici waayey kani waxaad leedahay office retail ayaad leedahay. kadib marka uu baadho maxay u yidhaahdo mahayo kiigii ayaad kan ku dhufan doontaa insha allah. markaas ayuu maxay active noqonaya kanina oo uu kiigii soo helaya. iminka waa kaa kiigii sidaad aragto kiigii intuu lamid yahay maaragtaa. iminka saad aragto waxaan ku guulaysanay kiigii waa ku guulaysanay. product key installation successful. sidaas ayuu inoogu karaagaraysan yahay. sidaas ayuu inoogu eegyahay insha allahu tacaala videogeeni aan ku baranaynay sida loogu install garaysto office 2019 computerkaaga ugana bedeshid kii hore. tan iyo intaan ku kulmi doono video kale oo xiisara waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadgelyo korkiina ha taydila.